يلا 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 waxaan soo gaadhnay dabadii loo marayay xasas leh halka iga muuqda galbiyo oo buuxa galkan miyaad ka ogeyd mise meeshu jiir bay leedahay khatar oo dadka cuni jiray dadkiina la soo xulay ka shaqeyn jiray buurta rabshiga ee ajaanibka u soo guri jiray xaaq shimbiraha mushahar maxaa qaadan jirteen jaamac annagu وانا مركي وريسي ستار تي في وهلكن نوgu soo boqdo barnaamij ka qabto oo markii horeysay mar labaad TV ga horeeyay buurtii rabshiga tago si wanaagsan uga soo tuubo taariikhdii rabshiga iyo waxba soo ogaada kadib 13 kiiloomitir aynu soo soconay haatan waxaanu soo gaadhnay ku sugannahay buurta surud oo ah buurta ugu dheer geyga Soomaalida كده شو قبل ما ينه ما يعدو ده وغير فانسيو ودقن كنا لشينا وحنا كشكينا ما هيدنا مي بروجكتنا ما سوق هذا المشروع بارنا مرة اسكت جري بورتا كنون هي تيدا هذا وحصوها هشان وكاور هينا تينا كاور هيا رك بالله دي كده كاور محمود وأدرك أركيسي أنت تجلس عند المسافة دي موجتي قبل بدي وحكاري وقتي كير صدق دقيقة مسافة دي مهدوة ما قبل قولي دو بين قاري دونا بس أنت قبل قارس ما لا أران كراوا من حتى أنقول لك فتمه وحلياها قريه نميجو فرتا سوق قدانو ما فرقدني كذا محمد ما يفرق ويدي ما وين يدودون هاي دريمك وين يدودون مال ورابي يسعد شوقان بس بصوبك الحبيب بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر واتاي waxaa jiri jirtay geerida marka qof geeriyoodo telefoon iyo tarwaayada ma jirin waarun maxaa la sameyn jiray qofka ilaa gurigan oo kala ku dhinto guriga kuma dhaw deris ma laha maxaa la sameyn jiray hayo baa la oran jiray inta meel dheer loo baxo baa waxa la oran jiray warayay
daawadayaal mar kale meel kale maalin kale iyo magaalada muqdisho oo toddobaadkan si toos ah idinkaga soo gudbinayo barnaamijkeennii Herari iyo Hargeysa toddobaadkan waxaan idinku hayaa ama aan ku eegi doonaa barnaamijkeena xubinta magaalada muqdisho bal xaaladaha kala duwan iyo duruufaha nololeed ee dadka ku dhaqan magaalada madaxda Soomaaliya muqdisho ay ku nool yihiin farxadda iyo naxdintu magaalada muqdisho waa laba mataanaa gudaha magaalada madaxda Soomaaliya muqdisho waqtiyada habeenkii barkulameedada qaarkood waa laga caweeyaa ilaa waagu daalaco halka meelaha qaarkoodna gobolkuba kolkuu dumo lagu kala caraabo meheradaha iyo meelaha ganacsigana iridaha loo xidho waana goobaha dadka ku nool ama ka ganacsada ay wali saaxiibka u yihiin ama rafiiqa leeyihiin cabsida xilliyada habeenkii xaafadahaasi waa waaqla oo laga kala hoydaa ma jirto sida cid waliba ka warqabto xilligan xiisado colaadeed oo muqdisho ka aloosan ama ciidamo mucaarad ah iyo kuwa dawladeed oo dagaal isku hor fadhiya waqtiyada habeenkii waxaa laga caweeyaa goobaha lagu kulmo iyo hoteelada waaweyn qaarkood ee magaalada muqdisho waliba goobahaasi qaarkood waxaa kolka dadku isugu yimaadaan lagu wada caweeyaa heesihii iyo madadaalooyinka fanaaniinta kala duwan oo ajaanib iyo Soomaaliba leh saddex wado oo kala gadisan xaaladaha iyo duruufahooduna ay kala duwan yihiin ay gaadiidkaasi ku kala safraan waxayna kala yihiin wadada cirka oo dayuuraduhu maraan wadada badda oo maraakiibta iyo doonyuhu isaga kala gooshaan iyo tan dhulka oo baabuurtu ay ku safraan inkastoo ay jiraan wadooyin dhulka hoostiisa ama badda hoosteeda mara kuwaasoo maraan tareenada noocyadooda kala duwan haddana wadamada dunida oo dhami ma wada isticmaalaan tareenada sidaasi waa sababta aynu barnaamijkeena Herari iyo Hargeysa ugu soo qaadanayno kala duwanaanshaha iyo farqiga u dhaxeeya safarada badda cirka iyo waliba dhulka sida magacyada gaadiidkani u kala duwan yihiin ayaa daawadayaal dadka kaxeeyana ma ay u kala gadisan yihiin wadaha baabuurta waxa loogu yeeraa dareewal kan markabkana waa naaqoode ama kabtan halka ka dayuuradana loo yaqaano duuliye afka qalaadna pilot waxaan shaki ku jirin in dhammaanba dadka shaqooyinkan gacanta ku haya midba uu kan kale la yaaban yahay haddaba dhammaanba safarada cirka badda iyo dhulka oo aan barnaamijka iyagan ku galay ayaan ku soo qaadanaynaa bal fikrada ay ka kala qabaan wadayaasha gaadiidkani duuliyaha diyaaradda rakaabku sideebuu u arkaa duulimaadka hawada iyo safarkiisa cirka muxuuse ka qabaa kaxaynta markabka iyo wadida baabuurka hay dabayliyo shikiila duunu dayaxyo cadceedan ku taga dalxiiso madaalu socodkee intii aanu daawadayaal ku sii guda jirnay biyaha badda u dhaxeeya jasiiradda Sacaadadiin iyo magaalada Saylac waxa badda dhexdeeda aan kula kulmay gabadh Soomaaliyeed oo magaceedu sida ay sheegtay la yiraahdo Muumino Faarax xaqiiqiyan waxa la yaabkeeda leh Muumino waxa ay ka mid tahay kalluumaysatada ka kalluumaysata biyaha badda u dhaxeeya Saylac iyo Looyacado Muumino waxa ay leedahay laash nooca aadka u dheereeya sida aadin muuqatana waliba iyada ayaa gacanteeda ku wadata oo ka naaqooda ah waxay intaasi sii dheer Muumino iyada iyo shaqaalaha kale laashka la saaraniba qof kastaaba dhankiisa ayuu witirka kalluunka lagu soo qabto ka tuuranaya oo badda ugala soo baxaya kalluunka haddii aan socdaalkeennii iyo jasiiradda Sacaadadiin sii wadano waa tan jasiiradda aad u maqasheen Sacaadadiin jasiiradda Sacaadadiin waxay dhanka bari ka xigtaa magaalada Saylac Sacaadadiin waxay ku dhex taalaa biyaha badda waxayna masaafo ahaan u jirtaa magaalada Saylac qiyaastii 9 mayl
daawadayaal sanad kasta sidaa horeba noogaga barateen waxaan telefishinka caalamiga ee Universal aan si toos ah idinkaga soo gudbinaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee dhacay sanadkii tagay haddaba waxyaabihii ugu waaweynaa sanadkaasi la soo dhaafay ee dhacay isla markaasina ka dhacay gudaha Soomaaliland waxa kamid ah waxa isla sanadkan sidoo kale lagu xasuustaa xukuumadda haatan talada dalka Soomaaliland gacanta ku haysa oo noqotay xukuumaddii ugu caburinta iyo tacadiga badneyd dhinaca saxaafadda kolka loo eego xukuumadihii u kala dambeeyay guud ahaan talada dalka Soomaaliland daruurtu mijaha soo rogtiyo webiga meel gaadha sida mowjad iyo biyahay marar jiiraane shimbiraha mukhtalifka u ciya ee midaba hees qaado ee midabka kala gooniya oo cadad milyuun gaadha mowd iyo siyaaxad ardiyo macallin moodaaye goortuu gorod miyuusiga tumo galow ku maaweelsho ee gumburisowd macaan gooni kala yeelo ee marisku kuu soo warramo meesha waxa jooga adiga iyo naftaada murmo doonin meel kale wariyahayaga cabdirasaaq yuusuf cali oo inta badan igala shaqeeya barnaamijkan Hirar iyo Hargeysa laakiin nooga soo warrami jiray aadna u yaqaan gobolka Sanaag ayaa marka hore iga warramaya sida gobolka Sanaag uu yahay cabdirasaaq bartamaha magaalada Ceergaabayna joognaa waa magaaladii aad ku kortay gobolka Sanaag sidiisaba haddii aan ku bilowno imise degmo ka kooban yahay guud ahaan gobolka Sanaag cabdirasaaq wuxuu ka kooban yahay 6 degmo run ahaan waa gobol baaxad ballaaran sidoo kale waa gobol Highland waxaa ku teedsan buuraha caanka ay u horeyso buurta aadka u dheer ee la yaaho surad sheeb shimbibiris sidoo kale daalo oo daalada laftirkeeda ayaa cabdisaan si kala baxda qaybo fara badan ay ka mid tahay daalo togan daalo arab iyo waliba daalada loo dalxiis tago oo ah goob iyaduna ka duwan daalooyinka